Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada baadhis laga sameeyay qaraxii weynaa ee ka dhacay caasimadda Beirut ee dalkaasi Lubnaan. Hadda su'aalaha in la isweydiiyo mudan ayaa ah yaa ka dambeeyay qaraxii ka dhacay dalkaasi Lubnaan ee caasimadda Beirut. sidoo kale su'aalaha la isweydiin kara ayaa waxaa ka mid ah sidee ayuu noqon doonaa mustaqbalka dalalka Islaamka ee qaraxyada noocan oo kale ah loo adeegsadaa. ugu horreynba dowladda Israa'iil ayaa farxad weyn ka muujisay kumanaanka muslimka ah ee halkaasi ku kumaadmay iyo kumanaanka kale ee dhaawacmay iyo sidoo kale buuxdhaafinta isbitaalada dalkaasi oo ay buuxdhaafiyeen dadka bukaanka ah ee ku soo waxyeeloobay qaraxii weynaa ee halkaasi ka dhacay. qaraxan ayaa aad uga weynaa kuwii markaasi ka dhacay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki. bambadan ayaa ah mid sanooyin badan ka hor lagu aasay goobtaasi. inta aysan qunbuladaasi qarxin waxaa jiray qaraxyo yaryar oo kooban oo isla mar ahaantaasina lagu istaaraya qunbulada meesha ku aasnayd. markii ay qunbuladaasi kacday 10 kiiloomitir oo isku weera ayaa la waayay iyada dhismayaashii iyo dadkii ku noolaa halkaasiba. sidoo kale meelow jira 400 kiiloomitir ayuu qaraxu saameeyay oo guryaha uu saameeyay dhulgariirkii qaraxaasi. dhammaan magaalada Beirut qaraxu waxa uu ahaa mid aad u saameeyay xitaa meelaha ka baxsan meesha uu qaraxu ka dhacay waxaa jiray falfaliid iyo dadka dhaawacyo kooban oo gaadhay. haddaba ilaa wareedyo sira oo la helay ayaa sheegaya inay dowladda Israa'iil tahay madaxa ka dambeeya bambadan. inkastoo aysan dowladda Israa'iil afkeeda ka qiran qaraxan, haddana cadeymo badan ayaa loo hayaa inay ka dambeyso. Israa'iil iyo Lubnaan waxaa ka dhaxeeya cadaawad soo jireena marka laga yimaado Carabta iyo Israa'iil. 2006 waxaa la ogaa dagaalo faraha lagaga gubtay oo dhexmaray Xisbullah iyo dowladda Israa'iil, halkaas oo Xisbullah ay gumaad ba'an u geysatay Israa'iil isla mar ahaantaasina ay dhulka la jartay qayb badan oo ka mid ah caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv. qaraxan ayaa loo arkaa argoosi ay sameynayaan dadka Yuhuudda ah si ay uga argoostaan wixii gaadhay 2006 dadkooda iyo caasimadooda Tel Avivba. haddaba wixii warahee ka soo kordha arrintan waxaad kala socon doontaan channelka Fakar Today. waa billaahi tawfiiq.